raa'id waxaan kaga hadlayaa go'aan ka soo baxay shalay golihii wasiirada ee loo xilsaaray ka hortagga coronavirus oo lagaga hadlay qodobo badan. qodobadaas ayaan waxaan rabaa inaan la wadaago taliyaasha qaybaha iyo taliyaasha kastamada iyo kuwa saldhigyada dhammaan cid kasta ay khusayso siday uga howlgeli lahaayeen. laga bilaabo maantay waxaa la mamnuucay maanta 6 galabnimo galabtay 6 galabnimo waxaa la mamnuucay qaad inuu soo galo wadanka. qaadkii soo gala cidda wadatana sharcigaa la geynayaa, qaadkana waa la gubaya, fagaaraa lagu gubaya. dadweynaha waxaan u sheegayaa inayan lacagtooda iska gelin. wixii horey ay uga heleen ama xalaal ha noqoto ama xaaraan ha u noqotee inay ilaahay ku anfaco oo ay iimaansadaan. laakiin inta la xanibay inaan nina orod iyo qaylo iyo waa xiray iyo wiil baa laga xiray iyo lacag baa iga gashay. waxaa waqtigaa dheerigaa loo siiyey inaan qofkaa lacag u shubnayd ayaan ka guban. lacagta maalin baa loo shubaa. lacagtaas shalay oo jimco ahayd baa la soo saaray. sababta loo soo saarana in maalintaa waxaa loo siiyey qofku inuu lacagtiisa ka ceshado oo tii sabtida uusan shuban. dad badan waa ka warhaynaa way ka ceshadeen, laakiin qaar badan oo shuban ayaa jira oo aan qaadka meel kasta waa lagu qabanaya. taliya saldhig waa lagula xisaabtamaya. hadduu degmadiisa soo galo waa lagula xisaabtamaya. taliya qayb waa lagula xisaabtamaya. dhammaan kastamada waa lagula xisaabtamaya. ninkii meeshiisa qaad soo galo waa lagula xisaabtamaya. qaybaha xuduudda waa ka sii duwan yihiin. laakiin hadduu soo dhaafo hebel waa soo dhaafay oo dee aniga anoo guda joogu ii soo gudbay ma aha. mid walba waa qabanaya. kambaylo jooga waa qabanaya. hadduu intaasoo soo dhaafo oo qaybta soo dhaafo kambaylo joogaa qabanaya. xaafuun baa qabanaya. baargaal baa qabanaya. qaad waa mamnuuc. bad iyo biri midna laguma keeni karo. waa mamnuuc. dadka iyo gaadiidka waa mamnuuc. galabta 6day ku egyihiin. galabta 6day ku egyihiin. waxaa jiraya dad aan guri isaga bartay oo intay dad soo qaadaan intay xagga keenaan yiraahdaan gaari kale adna xagga soo istaag. ma jirto arrintaas. ma jirto. ma soo bixi kartid. ma soo bixi kartid. xaggana kama bixi kartid haddii saacadaasu dhacdo. nin walbana waa lagula xisaabtamaya. degmada waa lagula xisaabtamaya. gobolka waa lagula xisaabtamaya. awal baa wasiirku ka hadlay, qoraal buu ku soo saaray. dhammaan booliiskana waa kula xisaabtamayna. waxaan leeyahay qof walbow hadeer ka waantow, miyirkaaga isu yeel. dadweynaha waxaan leeyahay iyo ciidamadaba inay ka foojignoodaan cudurkan yimi. qofku inuu qofka ka fogaado. dadka makhaayadaha wada fadhiisanaya inay joojiyaan makhaayadaha in la fadhiisto. dadka ganacsiga ku jira inuu qofka wax ka gadanaya dad badan inaan meesha laysugu keenin oo wax gadanaya. in la ilaaliyo la kala fogaanshaha. dadku inay qaataan tii afka lagu xiranayo oo ay xirtaan afka. oo afka ay xirtaan. badbaadada ku jirta. isu socodka badan iyo isbooqashada badanna in la joojiyo. waxaan leenahay waxa kaliya oo lagu xaq Ilaahay baa ina ka haynaya, laakiin waa in nadaafadana la ilaaliya. qofku gacmihiisa albaabka markuu taabto waa inuu gacmaha dhaqaa. markuu wax taabto loo wada siman yahay waa inuu raacaa.
dadka bajaajleyda iyo baabuurta iyo dadka isku ciriiriyaya waa in la joogo magaalada waaba la isaga lugeyn kara waa la isaga lugeyn kara inta hawsha waa in la xakameeya oo qof walba qaybtiisa ka qaata waxa kaloo sidaas oo kale la mamnuucay maanta laga bilaabo bedel waa mamnuuc bedel ciddii aragta iyo cidda wadaba waa la soo qabanaya ama magaalo ha ahaato ama kontarool ha ahaato bedel waa la soo qabanaya bedel waa la soo qabanaya dhammaan qaybaha waxaan leeyahay waa inaad ka howlgashaan oo arrintaa xoog saartaan xoog inaad saartaan ciidanku waa inay dadka u shaqeeyaan iska ilaaliyaan iyagu is ilaaliyaan naftoodana ilaaliyaan dadkana ay ilaaliyaan ma seexanayo ciidanku waa shaqaynayaa baalii lagu xiranayay la xiranayana waa loo keenayaa insha allahu galofisiyana waa loo keenayaa waa in ay shaqeeyaan oo si dhaba u shaqeeyaan dadkana ay ilaaliyaan meelaha la fadhiyo oo la wada fadhiyo bulshadu dad saa isugu shamuumta lama ogola dadku waa inuu qofkii soconaya iyo qofkii dan qabsanaya iyo qofkii laakiin inta sheeko la isu soo raadsado oo la yiraahdo saasay ahayd oo saasay ahayd oo saasay ahayd oo sheeko fadhi ku dirina lama ogola mamnuuc weey waxaan leeyahay dadku awaamiirta loo hogaansamo haddaan loo hogaansamin khasab baan ku fulinayn haddii loo hogaansami waayo khasab baa lagu fulinayaa lagu kala kaxaynaya sida caalamka ka socota laakiin suurageli mayso annagu xor baan nahay oo annaga isu tegayno oo annaga maaha intaasaan ku koobaya waa mahadsantihiin